Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada muuqaal cusub. Urka afka sababaha keeno iyo daawada. Urka afka sababaha badan ayaa keeno. Afka markuu uro dhib badan ayuu keenaa qofka dhinacaada fadhiyo. Mar walbeetu wuxuu dhibsanayaa afkaada uu uraayo. Sababaha keeno afka waxaa keeno sababaha soo socdo. Cuntada waxay ka mid tahay sababta ugu weyn ee afku uu uraayo. Tusaale ahaan, tuunta iyo basasha afka ayay uriyaan. Sidoo kale kalluunka iyo farmaajada nooc ka mid ah waaye oo afku uriyo. Afka markuu uu noqdo mid uraayo, cuntooyinkana sabab ayay u yihiin, waana la suulin karaa. Markii aad cunto toon ah ama basal ama malaay, iska nadiifi afka si fiican u cadayso. Afka sababaha keeno iyo daawada. Markuu uro waxaa kaloo afku uri karo sigaarka iyo tubaakada. Kuwan cuntooyinka way ka duwan yihiin sababtoo ah aad ayuu urur badan yihiin. Waxay keenaan wax ku dhex galayo gudaha dhuunta iyo ciridka. Qofka sigaarka cabo ama tubaakada cuno muddo kadib, si kasta hadduu afka iskaga nadiifiyo, urka kama tagayo. Sidoo kale afka waxaa qarmuun ka dhigo jirida ciridka. Nabraha afkana iyaga ayay uriyaan. Sidoo kale markii ilkaha ay noqdaan kuwa dhagaxaanta leh, waxaa ka dhasha qurunka afka. Cudurka riidka ama yiridka loo yaqaano isna wuxuu keenaa. Sidoo kale afka ayuu uriyaa, waxaana ka imaan karo caabuqa dhuunta, hunguriga caloosha iyo meelaha afka ama neefta ay soo marto. Sidoo kale jirooyinka keliya ee beerka, taas waxaa lagu ogaan karaa baaritaan. Sidoo kale waxaa ka imaan karo qaleelka afka iyo biyo la'aanta. Qofka markuu haraado, afkiisu wuu engego, wuxuu noqonayaa mid qarmuun ah. Sidoo kale bulumbuliga ilkaha iyo gowsaha wuxuu keenaa inuu afka u yeesho ur xun. Sidoo kale hurdada afka ayay urisaa iyo shubta badan. Sidoo kale sidee loo daaweeyaa afka uraayo? Urka afka ka dhasha ee qaleelka iyo haraadka ama hurdada ama shubta ama toonta iyo basasha wixii la mid ah waxaa lagaga hortagi karaa nadaafad. Laakiin mid ka yimaada gudaha ama caloosha waa inuu qofka la baaraa si lagu ogaadaa sababta dhabta ee u keento urka afka. Maxaa afka lagu carfin karaa? Waa in aad ka fogaataa cuntooyinka keenayo af urka oo dhan. Sidoo kale waa muhiim in aad wax badan ka ogaatid. Waa in uu qofka ka fogaadaa sigaarka. Waa inaad calaantisaa xanjo. Xanjada aad ayuu carfisaa, wayna u fiican tahay afka. Sidoo kale cabidda biyaha badan waa xal aad u fiican. Dadka afkooda qoyan yahay waa ku yar yahay urka afka. Caruurta afkooda ma uro, waxaana sabab u ah qoyaanka ama dhareerka ka daadanaya afka. Saasay tahay mana soo uraayo. Marka waxaa laga yaabaa inaad afkaada ka ilaaliso biyaha cabayso ama cunto ay ku daahdo. Dumarka iyo ragga way ka siman yihiin arrintan af urka ah. Sidoo kale dadka waaweynka iyo dadka dhexaadka iyagana way ka siman yihiin. Haddii afkaagu uu uraayo, qofka ku dhow ayaa ku nacayo. Qofka aad la sheekaysanaysana aad ayuu ku karaasanayaa. Masaajidka markii aad salaada jameeca la dukanayso, dadka waad dhibsanaysaa ama ayagaa ku dhibsanayo. Xaaskaaga aad bay ku karaasanaysaa haddii aad tahay nin. Sidoo kale naagta haddii afkeeda uraayo, ninkeeda aad buu u dhibsanayaa, gaar ahaan xilliga ay sheekaysanayaan ama waqtiga ay qaadanayo. Waayo waqtiga sheekaysiga wuxuu qaadanayaa waqti aad u dheer, sababtoo ah waxaa kiraysanaya markaas in lagu dhibsado ama adi aad dhibsato. Meesha markasteeto sheekada ay ka soo catane waa muhiim in aad mar walbeeta caraf ahaato. Sababtoo ah haddii ur badan oo imaado, waxaa labadiinaba karaasanaysaan, naceeb ayaa ka dhalanaya. Meeshaasna waxaa ka imaanayo conflict family. Culimada qaarkood waxay dhahaan xilliga sheekada ay socoto marka ama hurdada laga soo kaco, maxaa yeelay afka markaas wuxuu leeyahay
qarmuun aad u daran. meesha waxaa ka dhalan karto karaahisho caafimaadka afka maxaa ku jiro nadaafadda afkiisa, waayo haddii aad markasteeto afkaadu uu carfaayo waxaa tahay ruux markastuu alla jecel yahay. fadlan ilaali inuu afkaada uro, raac tilmaamaha nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam uu markasta uu cadaysan jiray. halkan ayaan kusoo koobaynaa cashirkeena. wabilaahi towfiiq, is aragti dambe oo xiise leh. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.